bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka alxurriya news waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu doorka roon wararkan idiin hayna xilligan hogaanka ahlu sunno oo hadal farxad geliyay nabad iyo nolol ku dhawaaqay kana tanaasulay siyaasadii galmudug xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku goodiyay in aan la aqbali doonin in filla Soomaaliya awood ay ku muuqanayso ahlu sunno wal jamaa Puntland iyo Somaliland oo cagajugleen cabsi ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanada Sool iyo Sanaag hawada isku mariyay wasiir Bayle oo kulan looga hadlayay dhinaca Soomaaliya la qaatay agaasimaha fulinta IMF Puntland oo howlgallo cusub oo amniga lagu xaqiijinayo ka bilowday gobolka Bari ciidamada Kenya oo lagu eedeeyay in deganaansho la'aan ay ka abuurayaan gudaha dalka Soomaaliya akhbaaradka dibadda wararka janaalka alxurriya news aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya digniintii ugu sarreysay oo laga soo saaray cudurka coronavirus qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka alxurriya news haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka koowaad ee hela wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona wararka janaalka alxurriya news haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay hogaanka ahlu sunna wal jamaa ayaa hadal farxad geliyay nabad iyo nolol ku dhawaaqay kana tanaasulay siyaasadii maamulka galmudug hogaamiyaha guud ee ahlu sunna wal jamaa macallin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa ku dhawaaqay in uu guud ahaanba ka tanaasulay siyaasadii maamulka galmudug macallinka ayaa ka tacsiyay dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay dagaalkii 24 saac la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in dadka shacabka ah ay ku dhintaan dagaal ka dhaca magaalooyinka galmudug ee ahlu sunna gacanta ay ku haysay waxaan ka tanaasulnay go'aankeena siyaasadeed ee hogaaminta galmudug inagu diyaar uma nihin in mar kale dhiig u daato ama bulshada iska hor imaato waxaan u taaganahay doorkeena diimeed iyo caqiidada ahlu sunna wal jamaa oo aan u sii taagnaan doono ayuu yiri hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaa macallin maxamuud hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaa ayaa ku soo aadayay xilli madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isna sheegay in mas'uuliyadda amnigooda iyo tan magaalada Dhuusamareeb iyo gaadiid iyo hub dagaal oo ay haysteen ciidamada ahlu sunna wal jamaa ay ku wareejiyeen taliyaha guutada 15aad ee ciidamada xoogga dalka General Mas'uud Maxamed Warsame oo ciidamadiisu aysan ka qayb galin dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug General Mas'uud ayaa ahaa taliyaha ciidanka la qarameeyay ee ahlu sunna wal jamaa waxaana hadda hogaamiya guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Sheekh Maxamed Shaakir ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in ay ka tanaasuleen dagaaladii ka jiray deegaanada maamulka galmudug ee u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaa markii ay arkeen dhibaatada ay ku sugan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug wali waxa daawanaysaan wararka janaalka alxurriya news waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku goodiyay in aan la aqbali doonin in filla Soomaaliya awood ay ku muuqanayso ahlu sunna wal jamaa xildhibaan mahadsanad oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug mahadsanad ayaa marka hore ka tacsiyay dadkii ku dhintay dagaaladii ka dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug isagoo kuwa ku dhaawacmana u rajeeyay in Ilaahay uu siiyo caafimaad degdeg ah xildhibaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in dadka reer galmudug ay ka tanaasulaan dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulka galmudug si loo helo maamul loo dhan yahay oo ay ku midaysan yihiin shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacamatayna waxaan u rajeynayaa buu yiri caafimaad degdeg ah dhinaca kale xildhibaan mahadsanad ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in dawladda federaalka Soomaaliya ay xoog ku muqooniso ahlu sunna wal jamaa isla markaana ay talada deegaanada maamulkaasi ka afduubato waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka wada deegaanada maamulka galmudug isla markaana aysan ahayn waxyaabaha halkaasi ay ka wada wax loo dul qaadan karo madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya ayuu kula taliyay in ay ka tanaasulaan dhibaatooyinka ay ka wadaan deegaanada maamulka galmudug isla markaana loo jahaysto sidii maamul loo dhan yahay looga yagleeli lahaa deegaanada maamulka galmudug oo xilligan tafaraaruq dhanka maamulka ah uu ka jiro wali waxaan xal laga gaarin arrimaha siyaasadeed ee cakiran deegaanada maamulka galmudug sida in la xalliyo khilaafka ka soo cusboonaada dhanka madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaafi iyo sidoo kale ururka ahlu sunna wal jamaa oo iyagana ka arriminayay mudooyinkii la soo dhaafay deegaanada maamulka galmudug
galmudug xildhibaan mahasalaad ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in marnaba aan loo dulqaadan karin in culamaa u diinka ahlu sunna wal jamaaca xoog lagu maquuniyo isla markaana dhibaato cusub dowladda federaalka Soomaaliya ay ka abuurto deegaanada maamulka galmudug shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ayuu ugu baaqay inay tanaasulaan isla markaana ay ka tashadaan ayahooda wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan Puntland iyo Somaliland ayaa cagajugleyn cabsi ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanada Sool iyo Sanaag hawada isku mariyay Cabdisamed Maxamed Galan wasiirka amniga Puntland oo ku sugan deegaanka Yube ee gobolka Sanaag ayaa digniin u diray Somaliland kadib markii uu sheegay in dhawaan ay weerar ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Sanaag wasiirka amniga oo la kulmay taliyaasha ciidamada lana hadlay ciidanka ayaa waxa uu digniin u diray maamulka Somaliland isagoo oo sheegay in aan loo dulqaadan doonin isagoo sheegay in Puntland haatan dulqaadkii uu ka dhamaaday diyaarna ay u tahay in ay qaado dagaal wax badan baanu wax xiirinaynay wax badan baanu nabadgelyada ilaalinay wax badan baanu nira xaaladda hal la qaboojiyo oo dib ha loo dhigo balse waxaad moodaa in marnaba aysan waantoobaynin Somaliland waxaanu ballan qaadaynaa oo aan hortiina ka ballan qaadaynaa in jawaab degdeg ah oo taariikhi ah in ay la kulmi doonaan dhinacyada weerarada nagu soo qaado ayuu yiri wasiirka amniga maamulka Puntland sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland ayaa dhankooda sheegay in ciidamada Puntland ay weerar ku hayaan maalintii Arbacadii ahayd ee toddobaadkii tagay aanu soo dhaafnay ayaa waxa uu dagaal magaalada Hadaftimo ku dhaxmaray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland dagaalkaasi oo sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac Puntland iyo Somaliland ayaa isku haya deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo midba midka kale uu sheeganayo in ay ka tirsan yihiin maamulkiisa dadka ku dhaqan deegaanada ay isku hayaan Somaliland iyo Puntland ayaa mar walba waxa ay cabsi ka qabaan in dagaallo ay ka dhacaan deegaanadaasi isla markaana waxyeello ay ka soo gaarto dadka shacabka ah wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal markana wasiir Beela ayaa kulan la qaatay agaasimaha fulinta IMF wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan magaalada Washington ee cariga dalka Mareykanka ayaa la kulmay agaasimaha fulinta hay'adda lacagta adduunka waxa ayna ka wada hadleen arrimo badan oo quseeya dhanka maaliyadda iyo sidoo kale deyn cafinta Soomaaliya wasiirka oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in kulankaasi uu la yeeshay agaasimaha guud ee hay'adda lacagta adduunka ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo muhiim u ah Soomaaliya waxaanu uga mahadcelinaynaa hogaaminteeda wanaagsan iyo dadaalkii hay'adda lacagta adduunka ka soo qaadatay dib u habeynta maaliyadeena iyo hanaanka deyn cafinta Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in dhammaan IMF-ta iyo caalamka ay u xaqiijinayaan in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay tilaab kasta oo lagu horumarinayo dhaqaalaha Soomaaliya iyo isbeddelka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda Xasan Cali Khayre ayaa sheegtay inta badan in ay ku howlan tahay sidii loo cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya taasi oo ay sheegtay in ay qayb ka tahay caqabadaha hortaagan xilligan horumarka dalkeena Soomaaliya wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal Puntland ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxa ay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka Bari laamaha ammaanka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa soo saaray miino lagu aasay xaafadda jidka Sodonka ee magaaladaasi wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in arrintan ay suurto gelisay kadib markii ay soo sheegeen dadka shacabka ah ee xaafadaasi ku dhaqan waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka kuwaasi oo ku guuleystay in miinada ay fashiliyaan ciidanka ayaa sheegay in miinada iyada oo aan wax khasaare ah geysan ay ku guuleysteen in ay furfuraan si nabadgelyo ahna meesha lagu aasay looga soo saaro ciidamada booliska oo kaashanaya laamaha sirdoonka ayaa baaris baahsan ka sameeyay xaafadda miinada laga soo saaray si gacanta loogu soo dhigo ciddii ka dambeysay miinada halkaasi la geliyay deegaanada maamulka Puntland waxaa ka dagaalama kooxda Daesh waxaana warar hoose oo aanu helayna ay sheegayaan in miinadaasi looga shakisan yahay in meesha ay geliyeen xubno ka tirsan dagaalyahanada kooxda Daesh dadka ku dhaqan agagaarka goobta miinada laga soo saaray ayaa waxaa soo food saartay baqdin ku aadan in markale halkaasi miinooyin lagu aaso ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in ay si aad u xaqiijinayaan ammaanka deegaanada ku xiran magaalada Boosaaso iyo gudaha magaaladaasiba si looga hortago falal amniga la diko ah oo ka dhaca magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News ciidamada Kenya ayaa lagu eedeeyay in deganaansho la'aan ay ka wadaan gudaha Soomaaliya danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay Ambassador Abukar Daahir Osman ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay
kulan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen waxa uuna si kulul ugu eedeeyay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya in deganaansho la'aan ay ka wadaan Soomaaliya waxa uuna ka codsaday qaramada midoobay in tallaabo ay ka qaado dawladda Kenya. Ambassador Abuukar Daahir Cusmaan waxa kale oo uu tilmaamay in uu si aad ah uga xun yahay xiisadaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay dawladda federaalka Soomaaliya ku daashay dhammaan wadiiqooyinka diblomaasiyadeed si Kenya ay u joojiso faragelinta iyo deganaansho la'aanta ay ka wado Soomaaliya gudaheeda. Danjiraha waxa uu ku eedeeyay dawladda Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya isla markaana ay caqabadaynayso amniga deegaanada gudaha dalkeena Soomaaliya. Dhinaca kale danjiraha Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Ambassador Abuukar Daahir Cusmaan waxa uu sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay ku difaaci doonaan xorriyadda iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Kenya hadda Soomaaliya waxa ka jooga 3500 oo askari kuwaasi oo qayb ka ah ciidamada howlgalka nabad ilaalinta AMISOM waxaana Kenya inta badan ay tahay dal Soomaaliya cadow ku ah taasi oo geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaysa in xasilooni darro ay ka dhalato gudaha dalkeena Soomaaliya ayuu yiri ambassadorka oo hadalkiisa soo gabagabeeyay. halkaad warkaasi kala socotaana waa Janalka Al-Xurriya News. markana akhbaaraadka dibadda digniintii ugu sareysay ayaa laga soo saaray cudurka coronavirus. ururka caafimaadka adduunka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa qiimeyn ay ku sameeyeen caabuqa coronavirus ku tilmaamay in uu qatar sare ku hayo dunida oo idil, balse WHO ayaa sheegtay in ay weli jirto fursad wax looga qaban karo faafitaanka cudurkan coronavirus. cudurkan coronavirus ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka dilaacay dalka Shiinaha waxa uu ku faafay dalal badan oo kamid ah adduunka waxaana xilligan laga cabsi qabaa in cudurka uu sii gaaro dalal badan oo ka tirsan adduunka haddii aan laga hortagin. hay'adda WHO ayaa waxa ay sheegtay in laga hortagi karo fursado badan ay jiraan oo cudurkaasi looga hortagi karo loona baahan yahay in dhaqaatiirta caafimaadka dunida xilligan ay ka hortagaan in cudurkaasi uu sii faafo dad badanna uu waxyeello u geysto. ilaa haatan waxaa la rumaysan yahay in 210 qof oo u dhalatay wadamada caalamka ay u geeriyoodeen caabuqan coronavirus. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararka aad kala socoteen Janalka Al-Xurriya News. haddii aad janalka ku cusubtahay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka koowaad ee hela wararka warbixinada 24 saac halkan aanu soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka iyaga.